wasiirka wasaaradda maaliyadda Soomaaliland Marwo Sabsam Cabdi Aadan maamulka gobolka Gabiley mas'uuliyiinta degmada Togwajaale iyo maamulka shirkadda caalami ee qaadatay mashruuca biyo-gelinta magaaladaasi ayaa maanta shaaciyay gabagabada mashruuca biyo-gelinta magaalada Wajaale oo soo dhamaaday isla markaasina waxa ay soo bandhigeen biyihii oo ku socda barkada kaydka biyaha ee u qaybin doonta magaaladaasi مسؤوليين oo arrimahaasi ka hadlaya ayaa wax yiraahdeen marka laga yimaado madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland waxyaabihii markuu kulmiye ahaa oo ku ballan qaaday ay ka mid ahayd biyahaas caafimaadka Wajaale iyo wadada markii la yiri Wajaale iyo kala baydh baa loo kala dhaxaa leedib baa loogu kala dhixin buuyin odayaal baxfiiska ay ku yimid waxay yiraahdeen 500 kun baa naga dhiman biyuhu inuu Wajaale gaadhaan shantii boqol kun budgetka lagu daray Cabdi Waaxid aad baan ugu mahadnaqayaa jeedin ma ahayn runtii maanta Ilaahay baynu wada mahadnaqaynaa Cabdi Waaxid dadaalka uu sameeyay iyo isxilqaanka uu biyihii ku keenay meesha duruufo badan oo la kulmay aawadood alxamdulillah maanta wayna ka biyahaas inuu hagaajisan lahayn sidaynu Ilaahay wuxuu yiri biyaha hal xitaa weysada in aad kugu filan ku weysayso biyuhu qiimaha ay leeyihiin inaynan ku ciyaarin inaan biyaha la hagaajiyo in meelaha uu mariyo la ilaaliyo in dadka danyarta ay biyo helaan ayaynu insha Allah isku waanin doonaa waxaynu maanta joognaa degmada Togwajaale oo ka tirsan gobolka Gabiley waxaynu maanta u wada joognaa biyihii loogu talagalay degmada Wajaale in lagu waraabiyo ee ay fankeeda wada bixiyeen hay'adda midowga Yurub iyo UNICEF oo wada socda wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradda biyaha oo laba qaybood uu fanku yahay qaybna ay bixisay midowga Yurub iyo UNICEF oo halkan aynu joogno Wajaale ilaa kala baydh ilaa ceelasha biyana waxa bixisay wasaaradda maaliyadda oo waxay ku jirtaa budgetka wasaaradda biyaha ee Jamhuuriyadda Soomaaliland saaka haddaan nahay shirkadda caalami construction company waxaanu halkan ku wareejinaynaa systemkii biyaha oo dhammaystiran oo annaga halkan nagaga eg oo company kale oo samayn doono ku wareejintii magaalada Wajaale aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa cid kastoo ka qayb qaadatay waxna naga tartay intii aanu ku jirnay hawsha culus oo ay ka mid yihiin maayarka degmada Wajaale intii uu maayarka ahaa ee hore iyo intii aanu maayarka ahayn oo xilka ka maqnaa mursal oo isagu mar walba joogay gobolka ballanqaadada xisbiga kulmiye waxa ka mid ahayd biyahaasi maanta aynu furnay waxa ka mid ahayd isbitaalka maanta shaqaynaya waxa ka mid ahaa wadadaasi aynu maanta ku socono maalintii aan xilka qabtay ee kulmiyana xilka uu la wareegay maalinta khamiista ee aanu Hargeysa tagayno haddii roob soo doo waanu dhixi jirnay maanaan tagi jirin imikana 10 daqiiqo gudahood baa lagu tagaa wadada haddii aan la samaynin taas ma suurta gasheen reer Wajaalow wax fara badan baa tiraahdeen aydan lacabna maanta wixii ka dambeeyay aybaan lacabnaa la kama maqli karo way hadhay halkan waxaan aad iyo aad uga mahadnaqayaa wasiirka maaliyadda oo xaqiiqda dhabta ah marka laga hadlayo daba taageeris iyo aad hawlgal fara badan uga galay biyahaasi sida Wajaale u dhaqaaqi lahaayeen xilligaasina ayna suurta gashan la'aanteed waxa kaloon halkani ka dardaaraya ee Wajaalow awal waxaad ku cabi jirteen booyadiyo dameer haddii aad wadooyinkaasi banayn weydeen oo oodaha wadooyinka aad ku xidheen aad banayn weydeen annagu halkan un baanu booyada iyo dameerka uga samaynaa qasabado weligiinba dameerka iyo waxaad ku cabaysaan iyo booyada haddii kale samayna wadooyinka banaysaan wadada inaad banaysaan baa laydinka doonaya nin walba jagadiisa intuu bar ka kaco in wadooyinka la baneeyaa loo baahan yahay si biyahaasi magaalada gebigeeda loogu wareejiyo intaasi ayaan kusoo gabagabeynayaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ballanqaadada xisbiga kulmiye waxa ka mid ahayd biyahaasi maanta aynu furnay waxa ka mid ahayd isbitaalka maanta shaqaynaya waxa ka mid ahaa wadadaasi aynu maanta ku socono
runtii waxaan kaloo jecelahay inaan u mahadnaqno wasiirka wasaaradda maaliyadda oo runtii kaabayaasha bulshada ee gobolka Gabiley si wanaagsan looga shaqeeyay iyo wadanka dhamaantiiba dalka dhamaantiiba ka shaqeysa biyaha kamida caafimaadka kamida ismayaasha kamida runtiina waa wax qofku wax wanaagsan u qabto waa in lagu amaanaa sida uu ka dhawaajiyay gudoomiyaha degmadu reer Wajaale waxa la idinka doonayaa inaa wadooyinka banaysaan wadadu waa tii ay idin soo mareysay qasabada biyuhu wadadu waa tii ay idin soo mareeyay ambalaasku wadadu waa tii idin soo mareeyay dabdabisku wadadu u mahad celinayna qismaha madaxweynaha ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Saylici wasiirka maaliyadda oo maanta si rasmi ah xariga uga jirtay biyihii inta badan la naawilayay ilaa waqtigii Ingiriiska muxuu ahaa ay doondoonayay degmada Wajaale annaga hadaanu maamulkii degmada Wajaale farxad bay noo tahay waxa kale oo isagana halkan uga mahad celinaya barasaabka gobolka Xamse Maxamed Cabdi oo ah barasaabkii horumarka gobolka Gabiley oo ku faalno hadaanu maamulkii degmada Wajaale nahay waxa akoonka noo galiyay maanta oo xisbiga kulmiye uu ku kaambeyn garoon doona wax qabadka la qabtay ee maanta aad ka war haysaan ee la qabtay ayuu ku kaambeyn garoon doona xisbiga kulmiye oo maanta arkaysaan in muxuu ahaa biyo xariga laga jaray cusbitaalkii wadadii weynay boqolkiiba 95 xukuumadda kulmiye waxay ka fulisay horumarkii uu ballan qaaday madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Sinaayo intaasaan ku soo gabagabeyn doona saxaafadana waan u mahad celinayaa wassalaamu calaykum warahmatullahi waxa mahadlay wasiirada magaca dumarka kor u qaaday ee ka hilaacday wadanka mar labaad waxaan mahad celinayaa maayarkayga magaalada Wajaale xaashi waa Mandele waa ninkii maalintuu yimiday magaaladu ceel may lahayn maalintuu yimiday magaaladu dhaqtar may lahayn maalintuu yimiday magaaladu may lahayn laamay may lahayn intaasiba intaan ku cabanaynay bay ahayd xaashi nasiibkiisa intii bay ilaahay gacantiisa ku keenay anigu waxaan u arkaa Mandele wadadana waan ku caawin doonaa hadii ilaahay dhaajidka mar labaad waxaan mahad celinayaa xisbiga yaga kulmiye waxaan leeyahay qofku markuu wax ku gashado